subaxa leeyahay waxa dhici doona mudaharaad marka Ibrahim uu cadaalad waayo ka bacdina wixii la sameyn lahaa markaas ay gudboon tahay laakiin marka hore laga warsugo dawladda. Allah u naxariistay Ibrahim Salaad oo ahaa wiil dhalinyaro ah oo dhiganayay jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama ayaa shalay galabtii xilligii qorax dhaci waxa ku toogtay jaamacadda dhexdeeda mid ka mid ah ilaalada jaamacadda. haddaba warar kala duwan ayaa ka soo baxayay dhimashada wiilka dhalinyarada ah oo dhiganayay jaamacaddaas sanadkeedii labaad kulliyadda injineeriyadda. wiilka dhimashadiisa ayaa siyaabo kala duwan loo kala qaaday iyadoona wararka qaar ay soo baxayay ay sheegayeen in dhimashada wiilkaasi ay sabab u ahayd kadib markii uu soo xirtay mara ka samaysan calanka buluugga ah ee Soomaaliya. balse warar ka duwan ayaa soo baxayay saacadihii la soo dhaafay kuwaas oo weli baaritaanadooda ay socdaan iyadoona wararka baaritaanada hordhaca ay sheegeen kadib markii ay sidoo kale ka hadleen maamulka jaamacadda Camuud in dhimashada wiilkaasi aysan sababsanin marada calanka buluugga ah ee ismaandhaaf isaga iyo weliba ciidanka sababtay inuu dhinto. sidoo kale fanaanka caanka ah Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Nimcaan Hilaac oo ah hobol ka soo jeeda magaalada Boorama ayaa arintaani si kulul kaga hadlay asagoona furka ku turtay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ee Muuse Biixi Cabdi isagoona dadka reer Boorama fariin qiiro iyo weliba iskugu jirta guubaabo u soo marsiiyay barahiisa social media. haddaba fariinta kululeed ee Nimcaan Hilaac oo buudka kula tuntay mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa barnaamijku idin kula wadaagi doonaa. sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Boorama xaaladeeda haatan halka ay marayso iyo weliba guud ahaan ardaydii wax ka baranaysay jaamacadda Camuud ayaan barnaamijka ku soo qaadaa dhigi doonaa daawadayaal. balse intaanan u guda galin fadlan marka hore waxaan idinka codsanayaa inaad janaalka subscribe saartaan fiidiyoogana aad like saartaan si uu asxaab fara badan u gaaro. sidoo kale baggeena Facebook isagana like saarta si aad inoola socotaan xilli walba. waa hagaag daawadayaal waxaa soo baxayay warar naxdin leh kuwaas oo sheegaya in wiil dhalinyaro ah lagu dhex toogtay magaalada Boorama gaar ahaan jaamacadda Camuud oo inta badan Soomaalidu waxbarashada u doonato. waxaan marka hore idin haynaa fariin ku saabsan fanaanka caanka ah Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac oo bariisa social media u soo marsiiyay dadyooga reer Boorama isagoona buudka kula tuntay Muuse Biixi Cabdi. fariinta Nimcaan Hilaac ayaa u dhacaysa sida tan: Allah u naxariisto wiilka ardayga ah ee lagu dilay jaamacadda Camuud. jaamacadda Camuud waxay noqon doontaa marmuush uu Muuse ku soo dhunto ama madashii cilmiga ee horey loogu sheegay hadday arintaas dhacday ka dhidi waayaan. qorshahan waxaa looga gol leeyahay in la iskaga hor keeno dhalinyarada Soomaaliyeed ee u soo waxbarasho doonta Boorama iyo dadka reer Boorama. waana arrin u baahan in si mid ah looga hortago loogana tashado xaaladan ay yarku la maagan yihiin. awdal waa in laga feejignaadaa bal cilmiga laynagu tuhmayo aan ku samato bixino bulshada inala dhaqan. hadalkan ayaa u muuqday miduu fanaanku aad kaga carooday dhimashada loo geystay wiilkaas dhalinyarada ah isagoona sidoo kale fanaanku uu sheegay in maamulka Muuse Biixi ay isku dirayaan dadka reer Boorama iyo weliba Soomaalida kale ee waxbarashada u soo doonata magaalada Boorama gaar ahaan jaamacadda Camuud oo ka mid ah jaamacadaha ugu faca weyn ee ka dhisan Somaliland. haddaba maalmihii dambe ayaa waxaa aad u soo badanayay in la xiro oo sidoo kale dhibaato loo geysto dadka inta badan qaata calanka Soomaaliya gudaha Somaliland kumaba sii jirto magaalada Boorama oo inta badan dadka ku nool ay aaminsan yihiin Soomaaliya mid ah iyo weliba hal calan oo ah calanka buluugga ah balse maamulka ay ku hoos nool yihiin ayaysan arintaasi u cuntamaynin. taas ayaana keentay in inta badan ay dhacdo dhibaatooyin soo gaara dadka ku dhaqan magaalada Boorama. Allah u naxariistay wiilka dhalinyarada ee geeriyooday arintiisii waxaa ka hadlay maamulka jaamacadda iyo weliba maamulka magaalada Boorama ayagoona arintaasi kaga warbixiyay sidii xaalku dhacay iyo weliba haatan sida xaaladda ay tahay magaalada Boorama. waa kana hayla daawada maamulka oo ka hadlay arintaasi. waxaan taasi u daraynaa qoyskii uu ka geeriyooday Ibrahim Cabdishakuur Ibrahim oo ahaa arday sanadka labaad ee kulliyadda injineerinka jaamacadda Camuud. ardaygaas oo ay rasaas ka timid nin booliis ah ay gaadhay. arrintiina booliiska ayaa gacanta ku haya oo baaritaankeedii ninkii shilka geystayna uu xidhan yahay booliiska ahaa. ardaygana saas ku geeriyooday. waxaan aad iyo aad uga xunnahay gobol ahaan
jaamacad ahaan iyo Soomaaliland ahaanba ardaygaa geeriyooday oo ka ku dhuftay iyo isagu ay ka wada yimaadeen bariga Sanaag aad iyo aad waan ka xunnahay ardaygaygii buu ahaa inankayagii buu ahaa kalna dee qaranka u shaqeynaya booliis qaranka u shaqeynaya ahaa labadaba waa bahdiin xaggana waa isku bahun xaggana waa isku bahun bay haayeen sidaa daraadeed ayaanu eheladii iyo gobolka uu ka soo jeedo iyo qaraabadoodii ayaan tacsi u direena annagoo ka xun tiiraanyaysan inankaas oo sanadka labaad ah mustaqbal fiican runtii lahaa haddana ilaahay inama weydiiyo ciduu qaadayo isagunbaa u taliyo ofiisihii baa u yimiday ofiisihii ilaahay oon horjoogsi lahayn ayaa u yimiday marka mar labaad iyo mar saddexaad annaga oo jaamacaddii matalayna madaxdii kale ay la socoto madaxdii qarankana aan halkan la joogayo kuwa gobolka iyo odayaashiiba ayaan tacsi weyn oo kashkiya laabta ka soo go'day ayaanu u diray waxaa dhacday inuu teleefankiisii ama mobilkiisii smartphone-ka ahaa uu ku soo ilaaway xaafadiisa jaamacadda uu ku soo ilaaway ka bacdina uu damcay inuu jaamacadda dib ugu laabto kana soo qaato teleefankiisii sidaa daraaddeed halkaas ay ka dhacday inay is-afdhaafaan ciidankii joogay jaamacadda sidaasna walaalkayo ay tiisii ku noqotay waqtigiisiina uu intaas ku dhammaaday waxaa kaloo jira warar suuqa ku jira in Ibraahim uu sita calan Soomaaliya ama uu xidhnaa calan Soomaaliya halkan waxaan ka cadeynaynaa inaanu Ibraahim wax calan sidan wax calan xidhnayn ee uu ahaa arday imtixaan soo galay imtixaan ku jirin uu ahaa hawlahaasna uusan ku jirin marka waxa nasiib daro noqotay xilligan soo kiciyay in walaalkayo oo meeyda warar been ah lagu laro dhimashadiisa ama tacsidiisa waxa leenahay kole kiiskada dawladda gacanta kula jirta waana la wadaa heer jaamacadeed iyo heer dawladba insha Allah waxaan rajeynaynaa inaan si cadaalad ku dhamaan doono kiisku waxaan kaloo halkan rabaa inaan fariin uga diro arday badan iyo xan suuqa ku jirta oo leeyahay in bari subaxa leeyahay waxa dhici doona mudaharaad waxaan halkan uga sheegayaa dhammaan ardayda jaamacadda Camuud inaan balad loo yeeran baladana la iska fogeeyo kiiskuna meel fiican marayo marka Ibraahim uu cadaalad waayo ka bacdina wixii la sameyn lahaa markaas ay gudboon tahay laakiin marka hore laga warsugo dawladda inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun sida ay walaalahayba ka dhawaajiyeen horta waa dareen aad u xun kaliya anu halkan waxaan uga dirayaa familka oo ka dhintay hooyo aabe samiri iman Allah idinka wada siiyo kaliya kama uusan dhimin waalid ummadda Soomaaliyeed oo dhan oo ka baxay mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan aad tacsi ugu dirayaa hooyadiis iyo aabihiis iyo familka oo ka dhintay oo dhan haddaba daawadayaal magaalada Boorama ayaa xaaladeedu haatan aad u kacsan tahay waxaana asbuuc ciidaha la iskugu laabay jaamacadda Camuud oo gashay xaalad halis ah waana markii ugu horeeyay mid kamid ah ardayda jaamacadda lagu dhex togto jaamacaddii wax ku baranayay waana arin ugub ku ah jaamacadda Camuud iyo waliba magaalada Boorama haddaba arimahan waxyaabihii ku soo kordha ayaan idin kula wadaagi doonaa barnaamijkeenan iyo waliba jawaabaha u dambeeyay ee soo saaraan booliska baaritaanka ku haya kiiskan waad ku mahadsantihiin sida u daawateen muuqaalkan intaan muuqaalka xiga ku kulmeen sida iyo nabadii